Yashoda waxay la wareegtay xaaladda markii uu taliyaha bilayska isku dayay inuu dilo Rishi. Yashoda ayaa qori ku qabatay Gautam taas oo Madhu iyo taliyaha ku qasabtay inay dib u gurtaan. Waxaa la daaha ka rogay in Yashoda aysan ahayn gabar uur leh oo caadi ah balse ay tahay sarkaalad bilays oo tababaran. Sababta ay xarunta u timid waxay ahayd in walaasheed ay gashay hawshan surogacay si ay u hesho lacag kadibna ay luntay. Yashoda oo diiday shuruud anshax xumo ah oo shaqo lagu siin lahaa ayaa go'aansatay inay isyeelyeelto inay uur leedahay si ay u soo gasho xarunta una raadiso walaasheed. Markii ay sawirka walaasheed tustay kooxda waxay xaqiiqsadeen inay walaasheed ahayd dhibane Yashodana ay hadda raadinayso aargudasho. Qaybtii labaad xoreynta iyo dhammaadka Yashoda waxay qoriga ku haysay Madhu iyo Gautam iyadoo sheegtay inay ogaatay qorshahooda. Isla markiiba koox ilaalada ah oo soo weerartay waxaa dilay Rishi iyo bilayskiisa oo dhabarka ka toogtay waxaana dagaalka lagu dilay taliyihii bilayska ee musuqmaasuqa ahaa. Kadib markii ay ka adkaatay ilaaladii kale Yashoda waxay xoreysay gabdhihii uurka lahaa ee qolka lagu hayay. Markii ay bannaanka yimaadeen Yashoda waxay qori ku qabatay Madhu taas oo qiratay in ilmihii ugu horreeyay ee ay u isticmaashay samaynta dawada uu ahaa ilmaheeda ay caloosha ku siday. Gabdhihii oo caraysan ayaa Madhu ku yaacay oo ka tuuray buur dheer halkaas oo ay ku dhimatay. Nasiib wanaag Yashoda waxay maqashay cod ay taqaan waxayna heshay walaasheed oo nool. Gautam ayaa isku dayay inuu gaari ku baxsado laakiin Rishi iyo kooxdiisa ayaa qabtay oo xiray. Sidaas ayay Yashoda ku soo afjartay boqortooyadii sharka ahayd waxayna badbaadisay walaasheed iyo gabdho badan. Filimkeena taxahana ahaa halkaas ayuu ku dhamayday. Waad ku mahadsantihiin taageeradiina. Anigu waxa ahay Haldoor waxaan soo wada filimka kale oo xiiso badan. Follow dheh muuqaalka share sidoo kale waxaan gaarnay 20,000 oo taageerayaal ah intaan iyo in ka badan inaan gaaro waa rajaynaa. Fikirkaaga ila wadaag sidee ayuu ahaa filimka mid kugu cusub miyuu ahaa mise horay ayaad u aragatay? Filim kale ayaa noo bilaaban doona goordhow.